روضة أحمد ياسين أو حبين كأح جديد حقوق الإنسان كقرن كسومالان ودوان حلكاسي لو داريي أي مانتا شقدي وجهريسي كبلودي حبس قدحي مقالة بربرة وحنا يكور قشة حالة محابستا كحولان شركة بربرة يدو أي وهلينيان مسؤولين تا قبل كأيدك مدى بربرة يدو أردنك كلنا ديق علي أي مسؤولين تا قبل كأيدك مدى بربرة أي كوريتشين سراكيشا حكومة شركة بربرة أريجن أو أي صوبحيين deegaanka tuulo dhibiijo ee gobolka Saaxib waxaanay ugu talagaleen in maalinta ciid ah oo bari ah dadkaasi jeelka ku xidhan arigaasi loo qalo dhamaan waxa weeyaan jeelka gudihiisa baan joognaa hadda horteeda waxa taagan dad dhalinyaro oo maxaabiis ah oo dadkii la doonayay in loo sameeyo halkan loogu sameeyo dhaqan celinta iyo tababarada lagu siiyo iyagoo xirfado wata inay halkan ka soo baxaan halkan jeelka aan maanta joogno wixii aan dhahayo ku aragnay iyo wixii riboodaba insha Allah waxaan u gudbin doonaa komishanka qaranka oo isku dhan iyo madaxweynaha waxaan se idin sida fariin oo maalintii anaga lana dhaarinayay madaxweynuhu hal waxbu nagala dardaarmay oo uu yiri waxa aad la shaqeynaysan waxa weeyaan jeelasha dadka ku jira ee qaylinaya ee muddo dhaaf baa jira climate-ka uu saameeyay iyo waxa ay ku sugan yihiin in laga warkeeno saldhigyada dadka ku jira ee aan la geynaynin maxkamadaha iyo dadka jilicsan iyo dadka yaryar ee khilaafay sharciga ayaa xoog marka anigu maanta maadaama aan imi magaaladeedii oo iidnahayd waxa aan qoondaystay inaan horta jeelkii berbera ee gurigii anigu aan ka soo toosayay la jiiraanka inaan ka bilaabo shaqadayda oo soo booqdo gobolkana gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolkuna ay nagu soo dhaweeyaan halkan maanta waxaanu ku gudoonsinay deeq xoolo oo la keenay tuulo dhibiijo ay keentay waxa la noo keenay oo gudoomiyaasha lagu wareejay 54 neef 26 waxa la siiyay jeelka mentalka 8 neef waxa la siiyay booliska 20 neefna waxa aanu siinay jeelka weyn sidaas xoolaha ay qaybtooda u dhacday waxaan idinka ballan qaadaynaa in gacmaha la isu qabsado in la idin la shaqeeyo laydinka warbixiyo annaga xuquuqal insaanka qoladayda komishankana anu waaban gariya kitaab waa markii ugu horeeyay gacanta la saaray waxba la hadhimayno insha Allah riboodkana taliyaha ayaana siinaya waana laydin dadaalaya waana idin salaamayna waana idin soo ducaynaynaa dadkiina jeelka ku jira in Allah idinka fududeeyo xaqana idin tuso isuna kiisa khiro waxa farxad weyn oo ah inay maanta goob joog noo ahaato Roode Axmed Yaasiin oo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaan xilka uu magacaabay waxaan runtii ay nooga duwan tahay sadaqadan waxaan noogu lifaaqan inaan kormeerno oo aan aragno ay indhaheeda iyana ay ku aragto xaqiiqada dhabta ee jeelkan uu leeyahay oo runtii jeelkani baahidu qaba ay tahay mid degmo ahaan iyo gobol ahaanba ka ballaaran oo duruufin ku xeeran tahay waxaan ku sheegaynaa Rooday halka xoolaha maanta ku wareejisay bacadka ay taagan yihiin ee ku haraadiyonayaan ayaa taliyaha jeelkuna taagan yahay taliyaha jeelku ma laha hoy gaara xafiis gaara ma laha waxa la dhisay 1,748 baa la dhisay ilaa iyo intaa waxa dhisankiisa laga bedelay ma jiro waa la xanjeeyaa uun kolba waa la qabtaa waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa 6 sanadood waanu qeylinay waanu sheegnay in Ilaahay albaabada ku furo oo aan noqoto qof u dooda xuquuqda halkan dad ku jira waa meel waa magaalo kulul waa magaalo xeebeed iyadoo qofka markii hore loo keenay ciqaab ay haddana ciqaab kale labaad u raacdaa waa climate-ka u raaca qofka muwaadinka waxa loo soo xidhaa si uu maskaxdiisa u degto oo ciqaabta la mariyo dambiga uu galay laakiin ciqaab kale oo rabaaniya halkan taalo ah climate-ka ilaahayga weyn ee na abuurtay ee koomkeena keenay ayaa mahadle ilaahay ka sokow sharaf iyo wanaag waxa la raga hawsha aan wadno nala caawiyay maxaabiistii aanu haynay ariga badan u keenay dhismihii iyo hawshiina noo ballan qaaday sida wax noola qaban lahaayeen oo dhan noo ballan qaaday in laga sii farxiyay waxyaabaha jeelka ka dhiman in aragnay kormeer horeyna waan ugu sameynay waxyaabaha ka dhimanna kulley ka gobol ahaan waxyaabo ka yara tan weyn bay tahay saad wada arkaysaan laakiin intii kol baanu qaban karnay waxaan ku dari karno waanu kugu garab taaganahay taliya وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد بلشة تي في مقالة حبيت بربرة.